بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. أنا جوا جبريل محمد يوسف waxaan markale halkan ka cadeynayaa in aan u taaganahay doorashada madaxweyne ee ka dhacaysa Puntland bisha Janaayo sanadka 2019. Puntland maamulka ay dhisteen 1998 waxa uga horeeyay maamul dhaqan oo u dhisnaa ilaahba mahaddas iska leh iyo isimadii xiligaas noolaa iyo aqoon-yahanadii dibadda iyo gudaha ka taageeray waxay u saamaxday inuu u dhismo maamul goboleedkan maanta jira. markaas la dhisay Puntland waxa xaqiiq ah inay haysteen xasilooni iyo kala dambeyn. dadku dhaqaale ahaan waa ka wanaagsanaa sida hadda la yahay. dadku waxay ahaayeen kuwo isjecel oo xiriir iyo xushmad ka dhaxayso. ujeedada Puntland loo yagleelay waxay ahayd in horumar iyo waxqabad dheeri ah la soo kordhiyo. nasiib darrada jirta waxay noqotay markii waxgaradkii Puntland ay marti ka noqdeen dawladnimadii. waxaa dhacday hoggaankii in uu gacanta u galo dad aan xilkas ahayn. waxaa halkaas ka soo baxday dib u dhac dhaqaale iyo mid siyaasadeed. waxaa la xalaalsaday maamul xumo iyo in lagu tagrifalo hantida ummadda. waxaa la galay heshiisyo siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale oo aan axadiga aan waafaqsaneyn oo dhibaato u keenay bulshada reer Puntland. ammaanka faraha ayuu ka baxay. waxaa dalka laga soo weeraray gudaha iyo dibadda. waxqabad amni daaye waxaa la socotaan dhacdada ka dhacday Boosaaso inay weerar isu geysteen laba ciidan ee dawladda Puntland ka kala tirsan. markaanu wax badan gorfeynay annagoo aqoon-yahano ah xaaladda Puntland waxay nagula muuqatay in waajib dusheeda saaran uu yahay inaan wax ka qabanno dulmiga halkaas ka jira. waxaa inoo muuqatay meesha ay arrintu ka murugsan tahay inay tahay hoggaanka talada haya. walaalayaal barnaamijkayga siyaasadeed mar kale baa soo bandhigi doonaa. waxaan hadda idiin sheegayaa inaan ahay nin leh aqoon ciidan iyo mid rayid. waxaan diyaar u ahay inaan dhibaatada ku eegan Puntland. sidaas awgeed shacabka reer Puntland meel kasta joogaan waxaan ka codsanayaa inay arrinka igu taageeraan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.